السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داوديال meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Arawaan ku eegi doono xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaano tiro badan oo ay booqatay Aamina Saalax Ducaale oo ka socota hay'adda Sanaag Women Association kana mid ah qurbajooga reer Sanaag ee ku nool wadanka Mareykanka gaar ahaan Minneapolis. barnaamijka haddii rabiidmo waxay idin la socodsiin doonaan anigoo ah wariye Cabdiraxmaan Axmed Ilsan waxaana uu barnaamijku si toos ah idinka imanaya magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Aamina muddo kooban ay ku sugnayd gobolka Sanaag waxay u kuurgashay booqashada deegaanada Yube Jidale Carmale Tamalaxaga reer Ardaa Kulmiye iyo Goof oo dhamaantood ka tirsan gobolka Sanaag. deegaanadan ay booqashada ku tagtay waxa xaqiiqdii ka muuqatay baahiyo caafimaad oo weyn haba ugu sii darnaadeen baahiyaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo iyagu u nugul xanuunada xilliyada dhalmada hooyadu ku jirto iyadoo ay sheegeen dadka deegaanadaasi inay mararka qaarkood hooyadu dhiigbax u dhimato marka loo waayo dawooyin lagu dhiig joojiyo hase yeeshee ay maanta aad ugu faraxsan yihiin in talaabo dhanka caafimaadka ay hore u qaadeen. Aamina Saalax Ducaale oo ka socota hay'adda Sanaag Women Association kana duulaysa baahiyaha caafimaad ay aragtay waxay dhagax dhigtay xarumo MCH kuwaasi oo dhamaantood deegaanada aan soo sheegnay ay ka dhagax dhigtay isla markaasina u ballan qaaday iyada iyo hay'adeedu inay wax muuqda ka qaban doonaan marka ay ku laabato bulshadii reer Sanaag ee ku dhaqnayd halkii ay ka timi. muddadii booqashada Aamina ku mareysay deegaanadaasi kala duwan ay u dhagax dhigtay xarumaha caafimaad waxay dadka deegaanadaasi laftoodu ballan qaadeen inay iyaga u dhankooda wixii karaankooda ay ku darsanayaan dhistamayaasha MCH-yada maanta loo dhagax dhigay. guud ahaanba waxa dadka deegaanadaasi Yube Jidale Carmale Tamalaxaga reer Ardaa Kulmiye iyo Goof ay ka sinaayeen baahiyaha caafimaad ee ka soo wajaha dadkooda xilliyada qaarkood kuwaasi oo ay sheegeen in hooyooyin badan ay xilliyada umusha jidka ku sii dhiigbaxaan mararka qaarkoodna ay sidaasi ku geeriyoodaan. waxayna dadka deegaanadaasi si weyn u soo dhaweeyeen haweenka ku midoobay hay'adda Sanaag Women Association oo ay halkaasi uga duceeyeen sidoo kalena waxay baaq u direen qurbajooga kale ee ka soo jeeda gobolka Sanaag isla markaasina ku nool wadamada caalamka kuwaas oo ay ugu baaqeen inay ururkaasi gacan siiyaan si loo gaadho hamiga caafimaad ee la doonayo in laga hirgeliyo deegaanadaasi. haddaba daawadayaal inta aan barnaamijkan ku guda jirno waxa goob u daawan doontaan deegaanada Yube Jidale Carmale Tamalaxaga reer Ardaa Kulmiye iyo Goof oo ay dadka deegaanadaasi baahiyaha dhabta ee la soo dersay kaga hadli doonaan. haddaba aynu ugu horeynba booqano deegaanada Jidale iyo Yube oo magaalada Ceergaab kaga aadan dhanka waqooyi bari halkaasi oo ay markii ay gaadhay oo ay dadku si weyn u soo dhaweeyeen isla markaasina ay ka dhagax dhigtay xarun caafimaad oo MCH ah. guud ahaan marka hore waxaan salaameynaa hablaha Sanaag Women Association magacan MCH degmada Yube warbixin kooban haddii aan MCH ka dhiibo waa 4 qol oo waaweyn kii waardiyaha 2 muqsul iyo barkada oo hadda xogaa damage gaaray oo yara dayacan inay nagu support gareeyaan dayactirka MCH hadda problemka ugu weyn wuxuu ka haystaa hablaha xilliga ay umulayaan ma helaan dayactir dhameystiran oo xilliga umulitaankooda ah dhawaan hadda waxaan maleynayaa muddo 12 casho inay ka sokayso hooyadii ugu dambeysay ilmaheediiba inay isku raaceen degmada hooyooyin badanna saa ay maxay ahayd ugu geeriyoodeen. hooyadu waa umultaacdaa mid lama oran karo laba lama oran karo jidkay ku dhintaan magaalada ay ku dhintaan baahi baan u qabnaa MCH-ka
cid allaale ciddii MCH-kan maanta u socota iyo ciddii wax nagala qabanaysa iyo ciddii noo furaysa intaba waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay soo dhawaada murugo weyn baan arrinta igala kulantay oo aanu ku aragnay waxa weeye inantii markay umushay oo xaaladeeda adkaatay oo abidii ka soo dhici weeday baabuur baa loo diray gaarigii intuu soo siday iyada meedeynada xanoqeeda abidii ku jirto waxaan kuriyada madiinada umulin baanu aasnay haway xaalad adag baa halka nagala kulantay dhakhtar kale oo weyn oo caafimaad goob caafimaad male degmada waa MCH-kana saas u fadhiya ciddii ka hawlgalaysa waxaanu leenahay jazakallahu khayrum kuwii hore uga qayb galayna haddana waxaan hal loo soo dadaalo dadkeena ammaankiisa iyo sida looga shaqeynayana waa furan yahay waa Muna Maxamed Cumar Saalax sida kinsi soo sheegtay waxaanu nahay anagu dhamaan waxaanu ku noolahay degmada Yube waxaanu nahay hooyooyinka baanu ka mid nahay maqnaqada u baahan cusbitaalka oo maalin kasta u mulaya waxaanu rabnaa meesha waa naloo hagaajiyay waa naloo wanaajiyay hadda xogaa yar way naga hadlaysantahay laakiin haddana waxaanu rabnaa in naloo hagaajiyo sidaas aan hooyay hoob idin la garab taaganahay waxaanu rabnaa meesha in la ka kaabo waana u baahanahay waxaan joognaa MCH-ka Yube sida uu Maxamed idin sheegay waa idin sheegay inta qol uu ka kooban yahay sida uu yahay waxaan Sanaag Women Association markii horena waxaan ka mid ahayn dadkii dhagax dhigay haatanna intii ka midisay waliba especially maaragtay dadka Sanaag Women Association ka tirsan haatan MCH-ki waa dhisan yahay waxa uu baahan yahay oo u haray in yar oo dayactira insha Allah bidmillaahi kariim waa la dhisayaa wana sida dhaqsaha ugu soo dhaqso badan baa la furi doonaa marka waxa weeyaan aad iyo aad ba dumarku ugu dhibaataysan yahay meel kastaba oo aan goob caafimaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu dayactirka Sanaag Women Association ay ka qayb galayaan qayb weyn ay ka qaateen horena uga soo qaateen intii dambena dhaqso loo furayo oo ay ka qayb qaadanayaan Aamina Saalax Ducaale waxay booqatay deegaanka Carmale Damalaxaga reeya Ardaa oo iyaguna ay ka jirto baahiyo caafimaad oo aad u weyn waxayna dadka deegaanadaasi si weyn u soo dhaweeyeen qorshaha hay'adda Sanaag Women Association ee ka taageeraysa xagga caafimaadka aad iyo aad waxaanu dhibaato ugu qabnaa anagu hadaan reer Carmaleenahay dhakhtar la'aan ama meel la'aanba dumarku marka ay halka ku fooshaan oo ay gaaraan waqtiga inta jidka la siiso dhakhtarka loo siiso in baabar ku dhintaa badna iyagoo liita bay u mulaan halkan waa ku mulaan iyagoo liita tii la qaadana ama jidka ku sii dhimataa ama xagaas iyadoo diiqsan la geeya alxamdulillah haddii aad maanta tiraadeen dadkayga qurbo joogta ah waxbaanu idin la qabanaynaa haddaad tiraadeen alxamdulillah annaguna dad idinku garab taaganay waanu idinku kaalmaynaynaa qofkii wax qaban kara iyo qofkii wax ku darsan kara waa ku darsanaya gabadha noo wada hawlaha samafalka iyadana waan salaamayaa waan soo dhaweynaya arrinka ay wado aad baan ugu baahnay anagu siisan haweenka aad baan halka ugu baahanahay wixii wax nagala qabanaya waa soo dhaweynaynaa dhibaatooyin badan waa lagala kulmaa horta qofka saacadiisu dhamaataa dhimanaya laakiin waa dhibaataysan yihiin gaadiid iyo dib iyo hawl iyo intaba waa la galaa dadku iyo qarash iyo intaba waa la galaa waa soo dhaweynaynaa baan leenahay waxaan ilaahay been ugu sheegayn kamarada dumarka u dhintay umul aroor 9 kama yara qayb jidka ceelgaaba ku dhimatay iyo qayb iskoodba halka ugu dhimatay oo gabdho yar yar ah oo ku umul arooray halkan waxay xukuntaa tuulooyin aad u fara badan sida ninku joogay biyo guduud aad saaran qabdhac danabjeex daarasalaam inta oo dhan qofkii dhakhtar u baahdaa halkan uu baahida la soo aadaa iyadoo aan baahi badan aan oo farmasiyo iyo waxaas ay ka furan yihiin laakiin aad waxaan isugu taxallujinay
oo meel dheer iyo meel gaabanba u fuulay dadkii aqoonta umulsada u lahaa inaanu soo saaro aanu waxbarashadii geyno jaamacadda annagoo aanu bixinno ciddii naga taageersa naga taageerto iyana waa ku guulaysanay insha allahu bisha sanadka 2017 intii horreysay nooga soo baxaysa jaamacadda waxaan leenahay soo dhawaada waxay wadaan MCH ay yiraahdeen waxaanu dhisaynaa qurba joogta iyo hay'adaha wixii ay kala kaashan karaan taana waxaan leenahay waa ku mahadsantiin waan idinku soo dhaweynaynaa sida laga soo sheekeeyay baahi ballaaran bay u qabtaan Carmale iyo kuwa Yube iyo kuwa kale oo tagi doontaan waxba waa isku dan danta ka jirta waxay tahay waa la gaari waayay waxna hadeer maamulka culus oo dadka wuxuu qabtaan ma jiraan waxaan leenahay waa idinku soo dhaweynaynaa waana ku mahadsantihiin annana waxaanu ku ballan qaadaynaa haddaanu nahay mandaqada Carmale dhiirida aad noo keenteen inaanu iskiin garab taagi doono mid awr keena iyo mid dhagaxa keena iyo mid lawdniisa soo dhiga iyo mid neef ariya keena iyo mid lacag in yaroo lacaga keena iyo annana asasmanka qaadaysaan oo maanta halka ka qaadaysaan waxaanu annana idinku dhiirinaynaa qoladiina mashruucan wadatay inaanu iskiin barbar marka waxaanu isweydiin jirnay war qurba joogtii dalkan u dhalatay kollay waxaan malaynayaa hablo iyo ragga way jiraan siba hadda ragga waxa ka horeeya hablihii dalka ka tagay xagee bay jiraan muratifiyada ma daawadaan waxa dalka loo sameeyo iyagu waxay ku jiraan hadda waxaan malaynayaa kollay ilaahay subxaanahu wa ta'aala kollay xilli baa dadka ilaahay wax sulansiiyaa in ilaahay tusay hawlaha u yaala dalku inuu u baahan yahay dadkoodii inuu dhiban yahay in ilaahay tusay aad baan ugu soo dhaweynaynaa Aamino Saalax Ducaale iyo qurba jooga hadaan odayaashii gobolka iyo degmadaba maanta waxaan dhagax dhigaynaa MCH ki naf iyo maal anigu mushaarkayga ku baaqay inaan bixiyo tabaarac ku darsado intaas ay ku deeqay in aan wax kala qabanno dadka dhibaatooyinkaas haysan especially hooyooyinka iyo caruurta bay hay'adu ku saabsantaa dabadeedna maanta ayaan waxaan u yeeshaynaa nimaado Carmale oo aan dhagax dhigno MCH ka insha Allah bidmillaahi kariim waxayna haysanaa qurba joog badan oo u dadaasha dadkooda jecel inay wax u qabtaan iyagan dib ugu la noqon doonaa ilaahay baa wax kasta shaqo ku leh ilaahay tiisa ka sokow promise and wixii karaanka yaga ah ee aan dadkayga qurba joogta ah dib ugu la noqdo ayaana wax ku qaban doonaa insha Allah sida ugu dhaxfasa badan anigoo aad iyo aad uga qaracmay dadka dhibaatooyinka soo gaadhay especially hooyooyinka iyo caruurta idinkana reer Carmalow idina wixii aad in contribution ka ku darsan kartaan ama qof volunteer sameynaya ha noqdo ama qof niis ku tabarracaya ha noqdo ama mid dhagax keenaya ha noqdo aan iskaashato ma kuftee waxaanu ka dalbaynaa ururka xayteena qurba joogta dadka jooga Yurub oo islaamka meel kasta ay joogaan inay naga caawiyaan MCH ka maanta noo dhagax dhigtay Aamino anagoo ku dhibaataysan umulsooyinka caafimaadka iyo wax walba oo soo raaca marka waxa noogu daran dhakhtarkaas noogu daran caafimaadka noogu xun marka isbitaal fiican ma helo sida ay gabdhaha kale ka soo sheekeeyeen dumarka umulaya iyo dhibaatada haysata ayaan idin sheegaya waxaad nagala qaban kartaan walaalayaal inaad nagala qabataan baan rabaa Aamino Saalax Ducaale aad iyo aad buu u mahadsan tahay dhagax dhiga ay noo bilowday ummadda daawanaysa cid kasta ha noqoto iyo gaar ahaan jaaliyadaha waxaanu ka codsanaynaa inayna ururkii hadda maanta Aamino Saalax way dhagax dhigtay ururka hanaqaad isna ay ku yahay hanaqaad nolol xagare bay isna lahaa qaabka sababta lagu dhagax dhigay ururka kan waxaanu ka codsanaynaa wixii abaabulkii urur waxan waa bilow waxa dhagax dhigayna waa dad iskood isu abaabulay ma dawladna ma dhisayso hay'adna gacanta kuma hayso ma dhisayso
wixii lagu taakulayn karo in lagu taakuleeyo haddan caafimaad jirin cunto lama cuneeno xaalad looma seexdeen haddan caafimaad jirin cunto lama cuneeno xaalad looma seexdeen haddan caafimaad jirin cashar lama dhigteen oo iskuul looma carareen haddan caafimaad jirin cashar lama dhigteen oo iskuul looma carareen haddan caafimaad jirin dara lama cadaysteen codna lama ilaasheen haddan caafimaad jirin cunto lama cuneen oo xaalad looma seexdeen magaalada sidaa la socotaan ama kaga warhaysaan ama aanu haddaba idinkaga warramayno xaaladeeda caafimaad aad bay u liidataa khaasatan dumarka uurka leh iyo dhallaanka labadaba waxaa jirta qofka hooyada uurka leh marka ay xanuunsato oo dhakhtar loo baahdo oo loo qaado meelaha loogu dhowdhowo loo qaadaa waxa weeyaan boosaaso qardho maxaanku idhahdaa iyo ceergaabo waxaan ku talagalnay inaan u caafimaado samayno cid kasta oo ka naxaysa rug caafimaad darradana aan la kaashanno waxaan idin soo gudbinaynaa ugajoogta hay-adaha cid kasta oo hawshaasi dhaqmayso rugta caafimaadka oo aan qorshaynay inay noo shaqayso iyadoo aan caafimaad darrada u adkaysan kari weyne ciddiina maqlaysa ciddiina arki doonta rugta caafimaad oona dhagax dhignay kuna tala jirno insha allah haddii ilaahay nala qabto inaan si degdega uga qabto awoodayada cid kasta wax nagala qaban karta inay wax nagala qabato waxaanu halkan maanta aan ka codsanaynaa aan codkayga kusoo gudbinaynaa baahiyaha ka jira degmadan Doonaha Garre oo ugu horeyso baahida caafimaadka oo ah baahida aan maanta halkan ka codsanayno baahida caafimaadka haddaan ka hadlo degmada Doonaha Garre waa degmo aad u baaxad weyn waa degmo aad iyo aad u sii ballaaranaysa maalinta ka dambaysa populationka hadda ku nool waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 2,000 qof populationka intaa leeg ma haystaan caafimaad rugta caafimaad aad baan ugu dhibannahay meesha noogu sokaysa aan ugu aragnaa waa sidaa laga qiyaas ka soo sheekeeyo waa qarbo iyo wixii la mid anigu waxba ku dari maayo intaa waxaan ku darayaa in intaa MCH-ka aanu dhagax dhignay in nala xoojiyo oo nagala hawlgalo oo wax nala kala qabto MCH meesha ma yaalo caafimaad ay dumarka haystaan ma jirto ma anigu meeshii baan dhex taagan oo maanta waa idii jeedaan caruuraha yaryar iyo hooyooyinku aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin especially hooyada uurka lihi ilaa ma inta ay ka gaadhayso meesha la geynayo jidkun bay ku sii jirtaa ama iyadoo ilmihii ka dhintay ama iyadii oo dhimatay unbaa gaadha waxaan ka codsanayaa dadka qurba joogta ah ee aan anigu ka mid ahay warkana aan idinka sido dadka mandaqada degan waxay aad iyo aad ugu ooman yihiin oo dhulkii ku bixinayaan oo doonayaan inay ka qayb qaataan xoog iyo maalba inay maxaanadaye caafimaadka helaan ilaahay baa wax bixiye waxaan dadka baryayaa inay dadka ay u hirgalaan maantana ay u hirgelisaan waxa ay codsadeen ee doonayaan in wax loogu qabto loogu sameeyo intii goobeed aan marayba inta saas loo wada cabanayaa meel aan caafimaad oolin waa wax maaragtay aad iyo aad u xanuun badan oo waxa aad iyo aad u dhibaataysan hadda Doonaha Garre waxa ku siban hooyo Soomaaliyeed oo umushay oo ilmihii intii ay sii socdo jidka kaga dhintay waxaan joogaa hadda tuulada Ardaa waxaan ka ahay mulisada maxaan idhahdaa Ardaa waxaan ku idhahdaa dib weyn baa naga haysata haddaan nahay maxaan idhahdaa mulisooyinka dadka maxaan idhahdaa dadweynaha ama meesha maxaan idhahdaa loogu shaqeeyo dib badan baa maxaan idhahdaa ka jirta waxa weeye mulisada ma aanu helo meel aanu ugu daryeelo oo kaga umulino maxaan ku idhahdaa MCH ama isbitaalba maxaan idhahdaa aanan haysano marka waxa weeye waxay nagu kaliftaa inaanu wadamo naga fogfog oo aanan hadda doono gaadhiba u haysan inaan maxaan idhahdaa gaadhi uga dalabno oo ay umulisadaas ku sii dhiig umulishaas ku sii dhiig baxdo maxaan idhahdaa jidka hadday doonto kuba sii dhasho dadka iyadoo ama ku dhimato ama maxaan idhahdaa ilmihii ku dhinto maxaan idhahdaa inna waanu sii dhibaatoono hadhow markaan halkoo aan tagno ilmihii oo rajo aan halkii ka soo
soo qaadno oo qofkii maxaan dhahdaa ilmaha dhalay aan ku soo celino oo halkan maxaan dhahdaa loogu keeno Minnesota waxaanu ka codsanaynaa maxaa inay naga caawiyaan maxaan dhahdaa oo gargaar nooga fidiyaan inaan maxay tiray noo dhisaan dhakhtarka naloo dhagax dhigayo in naloo dhiso boqolkiiba boqol baan salaamaynaa waayo wax dee jaaliyad ka socdaba wali wax baanu qabanaynaa anagu gabadha mooyee dee wax ka horow horteed mooyee iyada mooyee wax ka horeeya maanu arag wali dadka wax baanu qabanaynaa wax baanu dhisaynaa anaguna buqcadda annagaa bixinay hor ilaahay baanu bixinay dee waa deegaankayagii cidna waxba kagama rabno magaraysaa mar haddii wax lagu qabanayo dee adna waa inaad wixii dhankaaga aad ka geysatid annagu waxaanu nahay dadkii deegaankan Ardaa markaa ka warbixiyo xaaladda deegaanka ku sugan yahay ama se badiba jeedana ku sugan tahay oo fursad sanaag iyo bariga sanaag halkan inuu hadda joognaa Ceergaabo waxay u jirtaa ilaa 560 kiiloomitir oo xagga isbitaalka markaan ka hadlo ama caafimaadka hooyada iyo dhallaanka dhibaato badan iyo kadeed badan baa lagu qabaa sababtoo ah dhaqaatiiru waa joogtaa deegaanka wax gargaara ama sabafala ama dawooyina meel laba kama helaan maamulka ay saa u jira 560 kiiloomitir kama helaan qurba joogta u dhalatayna kama caawinto yaa Allah bil nasiib hooyada halka laga saara gaarigu qaar baa hol kale looga soo lalbiyaa meel jirta 550 kiiloomitir kuwa musha mid baa 30 kiiloomitir marka la marinayo kuwa musha iyadoo gaarigu la ordayo halka ku dhiig baxda khatar iyada ilmuhu ku galaan nasiib ilaahay baa la iskaga noolyahay hooyadiin iyo ilmihiina kuwa halka dhibaatada ka haysata ee ku dawaalaya ku caafimaadka leh caafimaadka ku haysata gargaarka ku haysata waa hooyadiin waa xaaskiina waa ilmihii idinka dhalanayay hay'ad dhibto baa nolol gabadha gacan la siiyo hala la shaqeeyo annagu haddaan nahay deegaanka wuxuu wax qabada itaalka iyo anagu ma wax qabsana cid wax nooga qabato aan ilaahay ahayn ilaahayna waa nukaashay dawladii leedahay oo dawlad ka yimaada wax dadweyne kale ka yimaada midna macnaan arag waxa weeyaan wax goob caafimaad leeyahay ma lihin wax caawiyo oo dhaqaatiir oo halkii keena daawo ma lihin maxay ahayd dal iyo dibad midna cidina kama caawinto ilaahay ma caawimo ilaahay baan haysanaa waxa weeyaan halkan gabadha laga qaado dhiig bax inay u dhimaato iyo in ilaahay badbaadiyo intaas ayay u dhaxaysaa halisna ugu sugan tahay inay dhiig baxba u dhimaato iyadii ilmaheeda markaas gabadhan waxaan leenahay aamino ilaahay khayr ha ku siiyo walaal hadaad maanta haystay dalkaagii iyo dadkaagii wax u qabo kuwa kale walaalaheena oo kula midka ana waxaan ka codsanaynaa inay sidaada oo kale ay iyaguna yeelaan waxaan wadnaa hay'ad la yiraahdo Sanaag Women Association waxaanu ka soconaa caruurta yaryar iyo dumarka especially dumarka maxaan uur kale iyo caruur maxaan dhaday iyo caruuraha marka sida aan ogahay ama sida aan hadarta xaqiiqda hayo dhulkiina aan joogo oo aan mid ula kulmayo waxaan u jeedaa baahiyo badan oo ka socda wadanka oo ay ugu baahi badan tahay dhakhtar la'aanta tallaal la'aanta hooyooyinkii iyo caruurihii iyo aad u tabaalaysan oo markii ay hooyadu foolato loola cararayo meel masaafo dheer oo loola doonayo goobo caafimaad haddii ay intay sii socdaan iyada oo xanuun hayo ay istiraahdo wadan kale qabo oo haba lala cararo qofkiiba ayaan la oo markaa laba qaadi karayo ama hooyadii jidkay ku sii umushaa dabadeedna ama ilmihii baa dhintaa ama labadoodaba wada dhintaan tirli inay falanteer garaynayaan inay dhagaxa bixinayaan inay dhoobada bixinayaan inay gacantooda bixinayaan intaba inay dadka wax kala qabtaan haddaba dadka walaalaheena diyaarka ah ee ku sugan dhulkan aad aragtaan ee aan maxaa dhahdaye dawladda rasmi aanay jirin aan kuna haysan gargaar hooyada way naga wada dhaxaysaa hooyo nin waliba waa jecel yahay waana dhashay waana la dhalatay maxaa dhahdaye inay sidaa ay noqoto dee ma aha waa inaynu caawinaa aamina intaasi kuma aysan joojin booqashadii iyo kuurgelidii deegaanada caafimaad darrada la ildaran
ee ay booqatay waxayna booqatay deegaanka kulmiye halkaas oo ay dhagax dhigtay xarun caafimaad oo lagu xanaanayn doono hooyada iyo dhallaanka. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Amina Saalax Ducaale waxaan ka imi Mareykan gaar ahaan magaalada Minneapolis waxaan u imi waxa jira dhibaatooyin aad iyo aad u badan hablo qurba jooga oo jooga magaalada Minneapolis macaawimo ay wadaan oo hay'ad ay hadda asaaseen oo cusub hay'adaas aan rabno inaan ku caawimno dumarka Soomaaliyeed iyo caruurta si ay u helaan caafimaad buuxa Ilaahay baa bixiya laakiin aan u dadaalo sidii loogu badbaadin lahaa hooyooyinkaas aad iyo aad always u dhibaataysan haddii ay xitaa umulaan oo ayba magaalo gaadhaan ay ku umulaan waxaan maqlay dib bay u soo noqdaan iyaga oo ama ilmihii ka dhintay ama iyagii xanuunsanayaan hadhowna dib baa loo soo celiyaa gaadhi sagxadii isnad feer wax wanaagsan ma aha waa in dadka walaalaha ah qurbaha jooga u kacaan dadka caynkaas iyo haddana waxay rabaan MCH in loo dhiso oo ay loogu gargaaro haatanna waxaan u dhiibi doonaa waxa jira caafimaad darro waxa jira dawadii meeshii ama wax ka dhisan ma jiraan insha Allah kariimse waxaan sugaynaa in Ilaahay noogu soo dadaala hay'adda maanta nooti way jiraan gabdho ku fooshay oo ku dhibaatooday dhowr kiiloomitirna waa ogtiin meeshu inay jirto gawaari badan loo dalbay iyagoo tabcaana la isku geeyay la soo celiyay markay umuuleen oo aad loogu dhibaatooday waxaanu leenahay rajada wanaagsan maanta reer kulmiye aad iyo aad waa deegaan ballaaran ayay ugu baahan yihiin iyadoo oo gabadha umusha ama fooshi ku raagto loola cararo ceergaaba oo dhowr iyo 30 kiiloomitir noo jirta rajo wanaagsan oo dadku aad iyo aad ugu niyaayireen oo hooyooyinku aad iyo aad ugu riyaaqayaan oo aanu hablaha kale Minneapolis joogana oo aamini nagala joogto maanta leenahay noo dhabay arintaasoo saani wax noogu qabta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabano oo gaariga kareysano waxa jirta kuwa gaariga kareysan karin oo maxay qabsan karin oo maxay tahay qofkii halkii dayac baa ugu dhinto ama de waqti adag ay noqoto oo diiq ku kaco ama iska baxo hadii waqtigiisa joogto marka aad iyo aad waxaan ugu baahanahay de wax naloo qabto guriga naloo dhiso baan aad iyo aad ugu baahanahay assalaamu calaykum caafimaadka markaanu ka waranno aad ayaanu ugu baahanahay iyada oo meel 30 kiiloomitir noo jirta aanu dadka u qaadno gabdhaha markay fooshu qabsato markay xanuunsadaan ilmaha mid kasta qaybo badanina ay ku naf waayeen iyaga iyo caruurtoodiiba halka oo aanu in badan qaylinayno oo lahayn war caafimaad daraan waa jiid ballaaran inta noo muuqata iyo in ka sii shishaysa ayaa waxa jirta dadkeedu daanu caafimaad ba haysan oo dumarka iyo rag mid kastaba midnaba ma haysto caafimaad waxa noo caafimaadka noogu dhow gobolka Sanaag Ceergaabo waxay dhicisku inta birta loo siisada u baqtiyaa oo caafimaad darradu kulliba waa ogtiino haddii xanuunku waa iska badan yahay maanta xanuunku waa badan yahay xaqiiqiyanna iyadoo dadku deegaanka baan caafimaad ka jirin haddana beertu caafimaad gaar ay u sii baahan tahay oo hooyada iyo ilmaheedu waxay rabaan caafimaad ka sii siyaadsan intaa ka marka cabashada ugu badan aanu maanta ka jeedinaynaa waxa weeye kaas deegaankan la yiraahdo reer kulmiyana waa deegaan ballaaran gabdhaha iyo cidii kale ee baaqan aragtaba dad deegaanka gabdhaha qurayaan ku koobina dad deegaankan u dhashay baa iyaga laftoodu jooga qurba iyaga laftoodu inay gabdhahan la xidhiidhaan oo kala qayb qaataan hadda gabadha ku foolata cal oo kale Ceergaaba gaar looga soo ingeeliya wuxuu ka degayaa casha dusha rag baa dusha ku soo qaaday waxay keenayaan dul bay keenayaan kulmiya lagu nasinayaa misna wax laga sii qaadaya gaari kale si Ceergaaba loo sii qaadaya taasi waa taa xigta dumarku de way isaga baahan yihiin wax taakuleeyo caafimaad u dhiso oo hooyooyinka ama ciyaalada hadda taan kulmiya ku foolata saddex shay saan u dul fadhino u leenahay war malaha iska umuli doonta ayaa dhibaato weyn qabsata markaas iyadoo dhibaataysan dad doonto kaadidii qabatay oo ibirba taagan baanu qaadaynaa dad doonto kaashaysi waa sii dilaacaysa halka dhibaataas naga haysata taa xigta dhibaatooyin badan baa jira oo deegaanku macnaha ma soo koobi karo anigu laakiin dhibaatooyinka xagga hooyooyinka ilmaha xanuunsada
booqashadii ugu dambeysay Aamina Saalax Ducaale waxay ku tagtay degmada Goof oo 70 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada Ceerigaabo halkaasi oo ay ka jiraan baahiyo caafimaad oo la siman deegaanadii kale. aniga oo wali sadcaalkaygii daba taagan waxaan maantana ku suganahay goobta Goof halkaasaan doonaya in looga hirgeliyo MCH aan dhagax dhigi doono waxaan u sheegayaa walaalahayga qurbaha jooga inay soo caawimaan maxaan leeyahay MCH ka la doonaya in la dhiso aniga oo ku hadlaya magaca Sanaag Women Association waa yartahay meel aanan istaagin meel walbana waa yani same complaint un baa yaala so waxaan idinka codsanayaa in la soo caawimo caafimaadku waa daruuri hooyada iyo dhalaanku waa waxa quraha oo dibdhaxaadka dadka ah waa in la soo caawimo waxay maqalay oo ugu maqaala in marka ay wax dhacaan loola cararo magaalooyinka kale dadka wax ku yimaadaan so intii ay saasi dhici lahayd waa in MCH ka ay iyagu jogadooda dhiibanayaan oo wixii kale ay ka qabsan karaan ka qabanayaan in dadka kale inta kale macaawimada walaalahan ugu daro meel kasta ay joogaan meel walbana waxa ka jirta caafimaad darrada darteed walaalahan waa inaan wax ugu qabano waa salaamantiin dhammaan dadka soo sharfay shirkan iyo cidii kale ee warkan maqlaysaaba waxa weeyaan sida ay walaashay ka dhawaajisay Aamina waxa weeyaan caafimaad boos caafimaad la'aan baa meeshan ka taagan iyo dhul badan oo la midaba waxa weeyaan meel health post la yiraahdo waxa ugu dhow 65 kiiloomitir oo Ceerigaabo u jirto way qofkii wax soo gaadhaan ee halka ama dhiig bax yar ku yimaado ama umul ama wax caynkaas waxa weeyaan ilaa Ceerigaabo gaari loo saaro halka wax maara loogu meelo marka waxa weeyaan cid allaale cidii danaynaysa bini aadminimada ama meesha tan oo goob Bender Salaama wax kaga xidhan yihiin in arinta wixii lagala qaban karo lagala qabto ayaan codsanaynaa waxa weeyaan waxaanu maanta diyaar u nahay in la noo dhagax dhigo health post ka anaguna wixii aanu ku darsan karno nagu soo beeyay aanu ku darsano wixii la nagu caawin karo la nagu caawiyo cid kastoo arrimaha bini'aadminimada ka shaqeynaysa xagga caafimaadka u baad moodaa maanta culaysku inuu yahay ama health post ha ahaato ama dhakhtar weyn ha ahaato horta wax dadaal caafimaad oo magaalada yaala ma jiraan hadeer totally ama dadweyne ha qabsado ama dawlad ha keento ama hay'adahan kale wax caawiya ha keeneen wax dhakhtar la yado ka shaqeeya ma jiraan marka ama qof walataa ha ahaado ama mid kanaaca hesha ha ahaato ama mid xanuun kale helay haatee intaba wax lala qabtaa uu dhakhtar si kastaba ha u gaaro ama dhaxda ha ku sii dhinto ama Ilaahay ha badbaadiyo xaqii uu dhakhtar Ilaahay baa dawo lagala doonaa marka Ilaah baa horta wax keena oo maganaysa dhibaatada biyo laakiin waxaan ka codsanaynaa inta noo timi iyo in kale oo maqanba inay naga caawiyaan xagga caafimaadka iyo wixii kale baahiyada Ilaahay baa baahida biyo naga maxay tahay naga soo booqatay inay noo samayso meel caafimaad noo dhagax dhigto anagoo ku hadlaya hooyada magaca Goof kana umulisa raqameed ilaa xad baanu u baahnayn inaanu helno bar caafimaad in badanna waanu ku taltaal jirnay Ilaahay baa haddana saamaahaya waxay noo jirtaa Ceerigaabo meesha dhakhtarka loo qabtaa sidii waayeelkii horeba u sheegeen 65 kiiloomitir waxa dhacda iyadoo haweenku foosho oo uu ku dhaco dhiigbax oo uu ku dhaco maxay haytay macnaha dhiigbax dhiikar maxay tahay xanuuno badan oo saameeya haweenka halkan aanay meel caafimaad xabadda kaar joojinta iyo xabadda dhiig joojinta iyo xabadda maxay tahay faleemada midna aanay laga helin taana aad baan ugu faraxsanahay haddaanu nahay haweenka Goof waanu soo dhaweynaynaa dal iyo dibad wixii joogana inay nagala qayb galaan oo wax nooga qabtaan arintaas aad baanu maxay tahay ugu baahanahay in badan baa nagaga dhimatay dhiigbax in badan baa nagaga dhimatay isku dhimasho baan u baahanahay in wax nala ka qabto nala ka caawiyo dhiigbaxa waxa weeyaan dumarka umulahaaba noogu sii dhibaato badan ee aan meel la gaarsiin karin qofka kale iyo caruurta yaryar fuuqbax ku dhaco maarixin sida waayeelku ka hadlay walaal anaga waxa noogu caruuraha iyo mulooyinka meesha iyadu waa hayjad dhakhtar ma leh Ceerigaabo intaasaan ula cararaa sida dhakhtar waa u baahanahay caafimaad waana ku hambalyeynayna waana ku soo dhaweynayna waana ku taageeraynaa
gunaanadkii booqashooyinkii Aamina Saalax Ducaale ku maraysay gobolka Sanaag waxay ku soo khatintay cisbitaalka guud ee degmada Ceergaabo oo ay isaga laftiisa ka jirto baahiyo caafimaad oo kala gedisan inkastoo aan la barbar dhigi karin deegaanada aynu soo sheegnay oo aan iyagu haba yaraatee lahayn xarumo caafimaad misna cisbitaalku uma dhamaystirna agabka caafimaad ee cisbitaalada loogu talagalay waxaana halkaasi baahiyaha cisbitaalka ka warbixiyay agaasimaha cisbitaalka Ceergaabo Ismaaciil Saleemaan Buugax magacaygu waa Aamina Saalax Ducaale waxaan maanta ku suganahay cisbitaalka Ceergaabo waxaan u eegaynaa maanta bal hada waxyaabaha uu u baahan yahay ee caafimaadka ay uga baahan yihiin maasha Allah cisbitaalkii waa joognaa maanta waxaan ku soo afjaraynaa cisbitaalka Ceergaabo anagoo u kuuragaleynaa bal hada waxyaabaha caafimaadka ka dhiman aniga oo ka socda hay'adda la yiraahdo Sanaag Women Association ugu horeyn magacaygu waa Ismaaciil Saleemaan Buugax waxaan ahay agaasimaha cisbitaalka Ceergaabo runtii marka ugu horeysa Aamina Saalax Ducaale oo ka socota Sanaag Women Association baahiyaha cisbitaalku meelaha uu u baahan yahay ee ugu baahi badan yahay waxa kamid ah amaan raahno way ka maqan yihiin inay baritaaraan ama taageeraan waxa weeyaan qurbo joogga reer Sanaag ee gobolka u dhashay wixii aynu u baahnayno u boholiyoonay inaynu ogaano inta ka soo walaalkay su'aal baan weydiinaya qayb kamid ah cisbitaalka oo always laga hadlo maxaa budgetka uga diyaarsan maxaase laga qaban karaa waana qaybta TB-da qaybta TB-da runtii way dhisan tahay hadda waad aragtay dhowr qol baa ka dhisan way leedahay laakiin inta hadda dhisan kuma filla amba waan oga marka in la kordhiyo in la kobciyo way u baahan tahay sidaasaan always jeclaa inaan maaragtay u kuura gallo oo aragno okay walaalkay waxaan weydiiyay su'aal kale oo ah budgetkan reer Sanaag waa badanahay isnad maaragtay only maaragtay cisbitaalka Ceergaabo kaliya waxaynu hadaynu nahay reer Sanaag waxa la isku kan yiraahnaa waa inta maaragtay agagaarka area-da magaalada marka waxa kamid ah tuulooyin badan oo soo maray ay kamid tahay magaalo tuulo la yiraahdo Yube ay kamid tahay tuulo la yiraahdo Dabalaxagare ay kamid tahay tuulo la yiraahdo Carmale iyo soo inta Murisho adigu anything aad ka ogtahay area-yinkan inagu dhow ma halka loo soo qaadayo waxay ka tirsananayaan cisbitaalka beeshinadooda inta la soo sidanada waynu aragnay mise iyaga qudhooda MCH-yada hadeerta kuwa badan aan soo dhex dhignay waxba la iskala qabanayaayo runtii su'aasha intaan ka ogahay dawladda waxa ka go'an wixii taalkeeda sanad walba budgetka waxa ku jira intaas oo MCH in la kordhiyo waxaan u baahanahay bulshada reer Sanaag inay isku tashato daliyo dibadba wax alla waxaan qabsan karno aan qabsano wixii aan ka maarmi weyno waxaan ku yarina gacmasha gacan u baahanana meelaha ku haboonaan u bandhigano wax la ilaaha meeshii qaliinka ya waa qaliinka guud iyo qaliinka yaryar ee maxaan ku idhaahdaa simbalka marka halkan waxa weeye waa meeshii ugu horeysay iridii ugu horeysay laga soo galayay waxay maxaan ku idhaahdaa inta badan dhakhaatiirta iyo maxaan ku idhaahdaa qofka marka hore kula kulma waxa laga qaadaa saxiixyada 94 kiiba sariirta laga keenay waxaana keentay hay'adda la koobi ilaa maanta way shaqeynaysay sababta ay u shaqeynaysay waxay ahayd dee faraadey oo lahayn yay jab yay قلقلة يسرير قلة يا laboratories set one سمعنا محمود وخبركي محمود هذا الماتيريال وكأحد محمود كاسونوي قربكي محمود هذا إن بدنا محمود نوستر جلسن لكن قرب كانوا هيسنا وأول حين محمود MSF نوقت سيدا كلام محمود كت كاسو حوي كتير لورن جري محمود هذا
appetition set suujarka wax yaryar baan ku haysanaa waxyaabahan kale wasta maxaan ku idhahdaa waa gaamiskii iyo shiidkii iyo maxaan ku idhahdaa waxyaabihii qofka marka maxaan ku idhahdaa la qalaayo la saarayay laakiin waa waxaanu isleenahay dee ku gorgaara oo waqtigeeda maxaan ku idhahdaa yani dee cidun baa idin bedeli doontaa ama cidun baa wax keeni doontaa aniga magacayga waxa la yiraahdaa Aamina Jaamac Aadan qaybtani waxa la yiraahdaa VCT baa la yiraahdaa VCT macnaheedu xarfa gaabsan weeye waa voluntary counseling and test majority wax lagu eegaa xanuunka la yiraahdo HIV-ga wuxuuna furnaa ilaa 2010 ilaa now aan taaganahay wuu furan yahay maxaan idhaahdaa hawshiisuna si toos ah u socotaa gacantana wax nagu haya hay'ad la yiraahdo Progressio haday dawo noqoto haday mushahar noqoto haday fangaray noqoto taas oo waliba cusbitaalka waliba ku caawisa waxyaabaha dictionary-yada hadda ilaa 2010 liiska yaga waxa galay 29 qof inkastoo aanay ahayn halkan oo kaliya ee laga yimaado mayd oo maaragtay ay dadku ka soo degaan haday ajnabi noqoto iyo haday Soomaali noqoto boosaas oo xaqan inoogu furan stigma taala marka majority dadku waxay sameeyaan burcay tagaan markaan uu refer gareynaan damacno inay dhiiga soo qaadan kadibna ay soo noqdaan majority waxay ku sugnaadaan burco magacaygu waa Faadma Cali Maxamed waxaan joogaa Health Information System xafiiska xog ururinta cusbitaalka oo ah qalabada ay soo gudbisaan oo maxay tahay aan si fiican u soo gaarnin cusbitaalka waxa kamid oo kale berbero oo kale baa la soo dejiyaa alaabta laga soo dejiyaa waxa laga yaabaa in dad aan cusbitaalkaba u warhaynin iyo maxay tahay magaaladaba in lagu soo qoro ama lagu soo ballamiyo dabatana ay alaabtii ku fiirgarowdo ama dad kale ka faa'iideystaan berbera marka imika waxa la sheegay inay bari dhaweyd la keenay talaagad loo soo diray ceergaabo gobolka xaleeya cusbitaalka haddana talaagadii la waayay meel alaaliyo meel martay in kale oo badan la sheegay marka waxaan ka codsan lahaa qurba joogta alaabta ay soo dirayaan inay dad macnaha ammaano leh oo wanaagsan ay ku soo hagaajiyaan maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa gurmadkan caafimaad ee hay'adda Sanaag Women Association ka wado degmada Ceergaabo iyo deegaanada gobolka Sanaag ku amaanay si weyn u soo dhaweeyay isla markaasina baaq u diray qurba jooga tirada beelay ee ka soo jeeda gobolka Sanaag maanta waxaan ugu timi xarunta dowladda Ceergaabo Aamina Saxaabane oo ka tirsan ururka dumarka Mareykan la yiraahdo Sanaag Women Association runtii aad baan ugu faraxsanahay dadka Ceergaabo oo isu tageen oo waxbay wada qabanayaan taanu Ilaahay ka baryayna way aad iyo aad baan u jecelnahay Ceergaabona dadkeedii mashruuca iyo maqrib buu joogaa berbero buuxa biyoola eegana dalka waxa qabadka ugu badan yahay dadka dibadda laakiin dadkii reer Ceergaabo ilaa imika waxaanu leenahay khayr wajid runtii aad iyo aad waxaan ku dhiirigelinayaa isu tagteen waxbay noo tahay marka wax noo qabataana waxbay noo tahay arrintaa inaad dadaal muujisaan oo Ceergaabo way sugaysaa wax u qabataan aad baan idinku boorinaynaa waan idin ducaynaynaa waan idin mahadnaqaynaa hawsha inantu noo sheegtayna waa dadka jilicsan ee dumarka ah ee caruuraha xaasaska uurka leh maxaan ku leeyahay inaad wax u qabanaysaan aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay ku guulaysta
welkan baanu idin leenahay. daawadayaal intaasi waxay noogu soo dhammaaday barnaamijkii aynu ku eegaynay booqashooyinkii Aamina Saalax Ducaale ay booqatay deegaanada gobolka Sanaag isla markaasina ay ka dhagax dhigtay xarumaha caafimaad. barnaamijka waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar waxana uu barnaamijku idinka imanayay magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.